walida way inoo dambaysaa inaynu dhulkii ay aad u dharbaaxay duufaanku aynu gaadhno oo dee wareegu uu ballaaran yaho ilaa xeebihii baynu mari doonaa laakiin waxaa imika ii muuqata laba amuuroodoo cajiib oo isa saaran mid waxa weeye dooxan ballaadhan sii ballaadhanaya markay biyuhu maraan dhanka qurux badan laakiin markaad eegto haddana dooxani wuxuu cunayaa dhulkii beeraha laga samaynayay oo erosion uu ku samaynayo laakiin dhanka kalena waxaa hareerihiisa aad ka arkaysaa beerihii baki oo weli aad u qurux badan oo khudraddii ay ka baxaysa liintii ha ugu badnaatee marka magaalada iyo degmaduba weli way aad bay u ladan yihiin inkastoo dhallinyaro shaqale ay ka muuqato laakiin dadka intiisa badani subaxii way dareereen beerihii bay tegeen waxaa lanagu yidhi waxay soo noqonayaan meelaha 10 iyo barhka 11 magaalada kusoo noqonayaan oo ay sheekaysan way qadayn dabeetana casarka haddana loo bixi beerihii in lagu noqdo kolka halkani baki waxay ila eeg tahay dadka aad u baarina ay noo sheegayaan inay tahay meel wax badan haddii la geliyo ku filnaan karto cunto badan oo ka soo baxda degmada awdal iyo waddanka intii Somaliland intiisa kalena la gaadhsiin karo marka labadaas ay isag yaala dabeecaddan adag iyo roobabkan wax goynaya iyo dhul ciidiisu wanaagsan tahay oo khudrad badan ay ka bixi karto oo barwaaqo badan laga heli karo waxaan soo gaadhnay iyadoo saacaddu imika ay tahay 9:10 subaxnimo maanta oo Arbaca ah xamarta durdurka cad ama xamarta la yidhaaho waa dhul aad u qurux badan oo labada dhinacba buura ay ka xigaan biyo badan leh laakiin waxaan imika dul joognaa dhul u baabiyey daadkii amba duufaankii anigu aan u bixiyey googooye waad arkaysaan dooxu wuxuu ahaan jiray halkaa geedahaasu ay yihiin ayuu ahaan jiray maantana dee waa kan soo durkay googooye halkan keenay qarkii baanu taagannahay buurtii waxba kama hadhin markaa biyo waxay noqon karaan ooy in badan yihiin dee nolosha loo baahan yahay oo nolosha biyuhu kor u soo qaadaan iyo roobka da'aya marna wuxuu noqdaa wax baabiya adduunyada googooye markaa dee halkaasay ka bilaabmaysaa waa taa dhulkii oo googo'ay oo meel walba maray geedihii au burburiyey aad iyo aad wax looga naxaweeye laakiin dhanka kalena waxay ku tusaysaa in haddii dhulkan wax laga qabto oo biyaha la joojiyo in ciiddani way wanaagsan tahay wax badan laga beeri karo waa dhul barwaaqo way noqon kara maantase waxaan dul joognaa dhulkii u baabiiyey duufaankii aan u bixinnay googooye saacaddu waa 5:15 East African Time waxaan joognaa magaalada la yidhaaho Gargaara oo gobolka Awdal ah oo socodka iyaga ka mid ah Gargaara waa meel ay ku nool yihiin ilaa 2500 oo qof waa ishii duufaankii aanu u bixinnay googooye waa isheedii halkii ugu darnayd weeye Gargaar dadkii baanu is aragnay madaxdii degmada odayaashii khaasatan iyo dhallinyaradii iyo carruurtii iyo haweenkii khasaaro weyn iyo dhibaato weyn ayaa halkan ka dhacday oo muuqata markaad magaalada soo galayso beerahoogii way baaba'een laakiin shayga ugu weyn ee muuqda dadkuna ay ku dhawaaqeen waxa weeye biyihii oo googooye googooyu ka baabiyey markaa biyihii biyo la'aan iyo biyo wasakha ayaa dadka intiisa badan ay cabayaan oo xanuun badan keenoo shuban keenay mahad weyn laakiin way sheeganayaan in ummaddu ay u soo jeesatay dibaddana dad badani ay gargaar keeneen oo weliba ay ugu horrayso wakiilka sare ee u jooga Somaliland magaalada London iyo waddanka Ingiriiska iyo Commonwealthka walaashay Ayaan Maxamuud Cashuur wixii deeqa ay soo ururisay waddanka Ingiriiska khaasatan in halkan ay soo gaadhay dadkuna ay markhaati ka yihiin oo ugu soo horraysiiyeen inay dhiig joojis arrintaasu noqotay oo ay badbaadisay ummaddii laakiin gargaari waxay u baahan tahay kaalmo cusub oo meel sare ah waxaana ugu horreeya biyo nadiifa dadku inay helaan biyo nadiifa inay dadku helaan maanta waa khamiis waxaan joognaa magaaladii
lughaya xeebta ku taallay oo xarunna u ah degmada tan lughaya waa ishii googooye duufaankaa dhacay halbowlaheegii weeye magaaladii waad arkaysaayoo wax badan ayaa burburay laakiin dhan waan ka yar farxoo waxaan moodayay dee dekan inay noqotay laakiin ma aha wax badanoo nool baa jira dhismooyinkii iyo dadkii dhimashaduna halkan mabay jirin hadday jirtana waa qof baa la yidhi markaa dhan haddii la eego masiibadu sidii aan filayay ma ahe way yaro dhaantaa laakiin sida degmooyinkaa kale iyo magaalooyinka kale aan soo marnay aan ku soo aragnay laba amuurood baa isa soo galay mid waxa weeye tan weligeedba jirta ee ah horumarka degmada iskuullada caafimaadka biyaha cuntada shaqo la'aanta arrimaha caynkaas oo ah dee mid soo jirtay soona jiri doonta had iyo jeerna dadka hortaala horumarka waddanka iyo koruqaadka waxaa u soo raacay oo isa soo galay dharbaaxadan weyn ee googooye uu keenay oo ah dee burburka roobka iyo dabayshu ay dhowaan keentay dadkii ree magaaladan ku degan si wanaagsan ayay noo soo dhoweeyeen oo casho wanaagsan iyo hadal wanaagsan ayay aanu isdhaafsannay waxay ka hadleen laakiin ummadda halkan joogtaa in dadkii ay doorteen ay ugu horeeyaan magaalada counsilka loo doortay iyo qofka madaxda ka ah inay shaqadii gabeen aad iyo aad ay u gabeen oo markaa dadkii ay soo gaadheen meel ciirciira oo qiirqiira ay soo gaadheen arrintaasuna dee dadkii waxay leeyihiin in wax laga qabto golaha hoose ee magaalada loo doortay inuu maamulo iyo qofka madaxda u ah oo shaqadoodii gabay in wax laga qabto ayay dadkii noo sheegeen madaxda waddanka iyo hargeysa fadhida iyo dadkii baarlimanka loo doortay ee lughaya laga soo doortay inay warkaa maqlaan oo ay qaadaan oo wax ka qabtaanna waa lagama maarmaan lughaya maanta shayga ugu weyn sidii aan ku soo aragnay gargaara iyo magaalooyinkaa kale biyo waayo biyaha meel fog baa laga keenaa qasabadihii qaadayey ayaa burburay oo googooyey markaa dadkii haraad bay had iyo jeer maalin walba u taagan yihiin qarka in surmi ay u dhintaan markaa biyihii lughaya sida loogu soo celinayo sida ay ahaan jireen waa shayga ugu horreeya ee reer lughaya ay maanta igala hadleen iyo xalay aniguna dee taasi waan arkay markaa in la ogaado madaxda somalilan ay ogaadaan iyo dadka baarlimanka ku jira ee halkan laga soo doortay arrintaa ogaadaan waa lagama maarmaan waana arrin degdeg ah dee baxnay muddo imika 3 cisho laga joogo safarka waxa aanu u baxnay in aan soo ogaano waddanka xaggiisa galbeedka waa tii bari aan tagnay markaa galbeedka in la soo ogaado noloshu siday tahay ayaa sababta ugu weynay ay ahayd dadka caadigihii sida ay yihiin meelo badan baanu soo marnay ilaa iyo 13 meelood ayaanu istaagnay qaaraanu u hoynay dadkii aan soo aragnay baki tii hore iyo tii dambe amba bakidii gabowday iyo ta cusub xamarta durdurka cad xoorey caraweyn sheedeer garbada dar gargaara lughaya geerisa farda lagu xidh weeraar dhagaxa madow iyo xali maale intaas ayaan soo marnay caawana dee boorama ayaan ku soo hoyanay sababta aan u tagnay ugu weynna waxay ahayd in aan horta bal indhaha ku soo qabanno oon la soo sheekaysanno dadkii reer somalilan ee xeebaha ku noolaa ilaa xali maale ilaa maxaanku lahay lughaya iyo inta u dhaxaysa iyo boorama bal aan aragna dee khasaaraha ugu weyn iyo dadkii siday uga soo kabanayaan duufaankii ballaadhnaa ee ku dhacay dhowaan iyo noloshoodii kale caadiga ahayd sida ay u socoto 13 meelood ee aan soo joogsanay waxaan aragnay wax badan oo lagu farxo oo ah dad reer somaliland ah oo isku kalsoon oo geed adayga
oo noloshooda dul jooga inay wax qabsadaan oo ishagaajiyaan laakiin mashaqo weyn ayaa waddanka ka dhacday qaybtiisan baki iyo xamarta iyo xoorey iyo garbadadar caraweyn gargaara lughaya geerisa farda lagu xir weeraar aan soo aragnay weliba khaasatan dulka xeebaha ku dhow mid waxa weeye tii caadiga ahayd noloshii dee maalin walba lala xarbiyayay ee caadiga ahayd oo horumarkii dee sida iskuulladii iyo noloshii caafimaadka iyo shaqad la'aanta iyo hawlahaas talabaadna waxa weeye waxaan anigu u bixiyey googooye wixii uu ka tegey googooye waxa weeye duufaanka aan hore loo arag oo ilimka la sheegayo kii ugu dambeeyey ku dhawaa inuu dhacay muddo laga joogo 8 sannadood iyo in ka badan marka wixii uu ka tegey inaan soo aragno de waxaan soo aragnay adduunyo dharbaaxa googooye intuu ku qaaday dabayshii iyo roobkii wada socday buuraha qaarkood uu googooyey oo uu dhagaxi jafay waxaanu aragnay dhul aan doox ahayn oo doox noqday waxaanu aragnay beero amba xabxaba ka baxo amba ha ka baxo maxaan ku raayay babaay ha ka baxo amba khudradii kale ha ka baxday tamaandhadii arrimaha caynkaas basashii oo iyagana uu qaaday waxaanu aragnay dooxyadii hore oo uu sii googooyey oo noqday dee waxaan la arki karin oo dee foolxumadooda iyo googo'a ka dhacay aad yaabayso marka waxaa jirta magaalada haddii aynu mathal u soo qaadanno garbadadar 18 saacadood ayuu roobku ka qaadi waayey markii googooye au dhacayay 18 saacadood roob dee wax taariikhda lagu arkay waayahan ma ah marka waxaanu soo aragnay dhul badan oo aad iyo aad u mashaqaysan dadkii ay taagan yihiin magaalada caanka ee la yidhaaha lughaya oo biyihii au ka qaaday ka googooyey daadkii iyo duufaankii oo markaa magaalada shayga ugu weynee maanta lughaya haysataa ay tahay biyo sida loo helayo magaalada in lagu soo celiyo sidii ay ahaan jirtay biyaheegu biyo nadiifa gargaara biyo la'aan biyo nadiifoo la cabo saasay ula mid tahay meelo badan oo caynkaas marka anigu horta aad iyo aad ayaan uga xanuunsaday waxaan soo arkay laakiin dee waxaan ididiilay geliyey dadgeed adeyga oo doonaya noloshii inay soo ceshadaan kaalmo weyn bay u baahan yihiin kaalmo weyn bay u baahan yihiin oo biyihii ugu horeeyaan iyo dee nolosha sidii loo soo celin lahaa marka fariinta aan u dirayo dadkii reer somalilan iyo madaxda somalilan ku hoose iyo ku saraba waxa weeye dadkii galbeedkaa deganaa baki marka laga qabto ee sidaa loo maro aan ku celiyo xamarta durdurka cad xoorey caraweyn sheedeer garbadadar gargaara lughaya geerisa farda lagu xidh weeraar dhagaxa madow xalimaale waxaasoo dhan markaad eegto dadkii waxay u baahan yihiin in la soo gaadho oo wixii hore loogu deeqay in ka badan ayay u baahan yihiin si ay nolosha uga adkaadaan oo ay u soo ceshadaan dee noloshoodii hore oo ay badbaadaan ayaan soo arkay marka halkanna waxaan raacinayaa intaa dadkii aan soo aragnay oo si wanaagsan noo soo dhoweeyey oo farda lagu xidh sidii lanoogu soo dhoweeyey cajiib ahayd oonu habeen u hooyanay lughaya oonu habeen u hooyanay oo casho wanaagsan oo kalluunkii oo lasoo qabtay oo lanoo dubay lanoo keenay yacni deeqsinimadooda dadka aanu galbeedka ku soo aragnay iyadoo dharbaaxadaa googooye ay ku dhacday haddana ay yihiin dad deeqsinimadooda iyo dadnimadoodu halkii hore uun ay tahay dawladda somalilan dadka reer somalilan intooda kale waxaa looga baahan yahay iyo adduunyaduba inay arrintaas dib u eegaan oo dadka lagu caawiyo in xoolo cusub la geliyo oo ay noloshoodii soo ceshadaan wixii maanta ka dambeeyana ay quwad yeeshaan ay kaga adkaadaan dee haddii googooye au ku soo noqdo ilaahay kuma soo celiye intaasaan soo arkay